tababaraha 60 jirka ah ee ku guuleystay koobka labaad ee laga ciyaaro qaaradda Yurub ee UEFA hoose ayaa walaac ka muujinaya in uu diyaar garow adag u galo ciyaarta Superkabaha ee la filayo inay fooda isku daraan in lagu wado asbuucyada soo socda inuu dhaco tartanka koobka Superkabaha. saxiix cusub ayaa dhacay halka kuwa kalena ay haatan wadada ku soo jiraan xilli la filayo inay si rasmi ah u furmaan tartamada horyaalada qaaradda Yurub toddobaadyada soo socda. aan ku bilaabay kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in laga diiday in ay soo qaadato ciyaaryahanka Delayed kadib markii ay kooxda Bayern Munich sugtay qiimaha lacageed ay ku doonayso inay ku soo qaadato xiddigani difaaca ee reer Holland. waxaa la sheegay in kooxda Bayern Munich ay doonayso inay lacag 50 milyan oo euro ay ku hesho xiddigan, laakiin kooxda Manchester ayaa doonaysa qiimo ka hooseysa ciyaaryahankan. kooxda Al Nassr ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa kooxda Liverpool u soo bandhigtay lacag 100 milyan oo euro ah oo ay ku doonayso inay ku hesho saxiixa ciyaaryahanka reer Masar Mo Salah, laakiin kooxda Liverpool ayaana ka hadalka ka soo yeeray kooxdani ka diiwaangashay dalka Sacuudi Carabiya. Mo Salah ayaa bartilmaameed u ahaa 2 sano u dambeysay kooxaha horyaalka Sacuudiga, laakiin Liverpool ayaa u muuqanaysa inay tahay mid ku faraadeegaysa siihaynta Salah. Salah waxa uu ka mid yahay xidigaha ugu mushaarka badan horyaalka dalka Ingiriiska. kooxda Real Madrid ayaa u soo bandhigtay kooxda Tottenham ee ka dhisan garoonka White Hart Lane inay ka iibiyaan ciyaaryahanka Cristiano Romero, isla markaasina ay ku soo qaataan lacag 43.8 milyan oo euro ah. laakiin waxaa la sheegay in kooxda Tottenham ay diiday inay qiimahaasi ku bixiso xiddigan oo ay soo dalbanayaan kooxo badan oo ay ka mid tahay kooxda Bayern Munich iyo Bayer Leverkusen. kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay maanta dalab u gudbisay kooxda Crystal Palace iyadoo doonaysa xiddiga qadka dhexe ee Eze, kaasoo ay doonayso inay ka dhigto beddelka Julian Alvarez. kooxda Manchester City oo ku heshay qiimo aad u sarreeya ciyaaryahanka reer Argentina ayaa doonaysa beddelkiisa inay hesho, waxaana haatan bartilmaameed ay ka dhiganaysaa ciyaaryahankani kooxda Crystal Palace iyo xiddiga kooxda Real Madrid Rodrigo, iyadoo doonaysa in labadaasi midkood ay keenaan. kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ka fikirayso inay kooxda Athletic Bilbao ay kala xiriirto Nick Williams, xilli oo Williams uu sheegay toddobaadkan gudihiisa inuu joogayo kooxda isla markaasina isku diyaarinayo tartanka horyaalka La Liga Isbaanishka ee xilli ciyaareedkan. kooxda West Ham United ayaa lagu soo waramayaa inay maanta xaqiijisay inuu ka tagay difaacooda Zuma, isla markaasina uu ku biiray kooxda ka diiwaangashan dalka Sacuudi Carabiya Shabaab. ciyaaryahankan ayaa xirtay maaliyadda kooxdaasi reer Sacuudi Carabiya, waxa uuna ugu biiray beeca xurta ah kadib markii uu dhacay heshiiskii uu kula joogay kooxdani ka dhisan magaalada London. ciyaaryahanka reer Brazil ee qadka dhexe ee kooxda Newcastle Guimarães ayaa maanta sheegay hadal niyad jab ku noqday kooxaha Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester United iyo kooxda Bayern Munich. waxa uu sheegay Guimarães inuu jecel yahay inuu sii joogo kooxda Newcastle, isla markaasina uusan doonayn inuu ka ciyaaro meel ka baxsan garoonka James Park. waxa uu sheegay Guimarães inuu jecel yahay inuu taariikh uu ka sameeyo kooxda Newcastle, isla markaasna uu haatan isku diyaarinayo tartanka horyaalka Premier League. tababaraha kooxda Manchester United Ten Hag ayaa rajo fiican ka muujiyay inuu dib garoomada ugu soo laaban doono saxiixii cusba ee dhowaan ay samaysay kooxda Manchester ee reer Faransa Leno Yoro. waxa uuna sheegay inuu rajaynayo inuu ka soo kabsado dhaawacii dhowaan soo gaaray. kooxda Manchester United ayaa toddobaadkan gudihiisa xaqiijisay in Leno Yoro uu ka maqnaan doono garoomada muddo 3 bilood ah kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray jilibka. kooxda ka dhisan dalka Talyaaniga ee Napoli ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka da'yarka ah ee kooxda Benfica David Neyo, kaasoo si weyn looga xiiseynayo horyaalka dalka Ingiriiska. xiddigani da'da yar ayay doonaysaa inay soo qaadato kooxda Napoli, waxaana la sheegay in Benfica ay u sheegtay haddii ay doonayso Napoli inay bixiso lacag 25 milyan oo euro ah oo ay la socoto 4 milyan oo ku xidhan qaab ciyaareedka xiddigan. ciyaaryahanka xulka dalka Talyaaniga Retegui ayaa la sheegay inuu maanta uu
tegay xarunta tababarka ee kooxda Atlanta isla markaasina lagu wado in saacadaha soo socda uu caafimaadka u maro kooxda Atlanta kadib markii uu lacag 25 milyan oo euro ah uu kaga soo wareegay kooxda Genoa. Kooxda Atlanta ayaa heshay saxiixa daayirkan oo muddo dheer ku raad joogtay. 60 jirka hogaamiye kooxda Atlanta ayaa sheegay inuu rajaynayo in xiddigani uu wax weyn kooxda ka bedeli doono, laakiin waxa uu rajo xumo ka muujiyay diyaargarowga ciyaarta Superkabaha oo lagu wado inay toddobaadada soo socda la ciyaarto kooxda Real Madrid, maadaama sida uu sheegay kooxdu ay jiraan dhaawacyo badan oo soo wajahay isla markaasina si weyn aysan uga dhex muuqan suuqa.